waxaan rabnaa inaan soo dhaweyno Aamino Muuse Maxamed oo maanta ku soo guriyo noqonaysa wadanka Sweden. halkan waxa taagan shacab badan oo raba inay soo dhaweeyaan. waxa kamid ah gudoomiyaha oo ubixiisa la taagan iyo fiyoorihiisa la taagan liibaan ayaga ka sheekay xaalka halkan waxa u taaganahay inaan soo dhaweyno Aamino Jabbaar oo gudoomiyaha jaaliyadda Sweden ee gobolka Gaardufuur. waxaan leenahay soo dhawow ku soo noqosho wanaagsan. ما شاء الله ما شاء الله هذه أدنى كلمة halka kale waxa taagan cashuur baa taagan oo u heelan soo dhaweynta Aamino Muuse Maxamed. Aamino Jabbaar cashuur hayay ka waran maanta Aamino halka ku soo dhaweynayna sida aragtaa soo dhaweynta halka ku sameeyay Aamino. waan ku faraxsanahay soo dhaweynta hadda maanta waxaan u taaganahay halkan soo dhaweynta Aamino Muuse oo hawlo shaqo ugu maqnayd wadanka Soomaaliya tagtay gobolkii iyo Gaardufuur iyo Soomaaliya hawlo shaqo ugu maqnayd haddana maanta soo degaysa ayaan soo dhaweynaynaa. waxa hadda halka taagan shacab fara badan oo u taagan soo dhaweynta Aamino Muuse. waxaan leenahay soo dhawow waan sugaynaa. waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan sidaad baaragtaan dad badan baa soo dhaweynaya. soo dhawow baan leenahay Aamino Muuse. ما شاء الله aad iyo aad badan maadsan tahay soo dhaweyntaas soo dhaweynayso mulki haye waxaad ka mid tahay dadka soo dhaweynaya maanta halka taagan Aamino Muuse soo dhaweynaya airportka Sweden baa taagan tahay sidoo aragtaa soo dhaweynta iyo hawsha ay Aamino ka soo qabatay wadanka. السلام عليكم waxaan u arkaa guul aad u weyn haddaan nahay gabdhaha reer Gaardufuur gaar ahaan Casir Women Foundation aad baan u faraxsanahay intaas waa wax la qabtay oo aan sugaynay. Aamino waxaan leenahay Ilaahay khayr ka siiyo waxay soo qabatay waan sugaynaa feerkoonna tilboka taag sayta mike ashad haye maxaad adiguna ku daraysaa hadda Aamino amaan inta la amaani karo waa la amaanay. aniga waxaan ku darayaa kala duco Ilaahay khayr ha ka siiyo ajri xasanaad waxaad soo qabatay. waxaan u baahanahay Aamino kaliimaana kun Aamino inay soo baxaan jazakallahu khayr. Aamino waan ugu hambalyeynaa walaashay hawsha ما شاء الله يوسف haye maxaad adiguna ku daraysaa halkan waxaan u joognaa gudoomiyaha jaaliyadda Sweden gaar ahaan Festros iyadoo Aamino Jabbaar iyadoo wax badan ka qabatay dalka gaar ahaan Gaardufuur. waan soo dhaweynaynaa 100% waxaan oo kale rabnaa inaan ka wareysano dadka Gaardufuur qaabkii ula dhaqantay ama iyada loogula dhaqmay intaas un baa meesha u taaganahay. waxaan leenahay marxaba gacmo furan ku soo dhaweey. aad iyo aad waxa kamid ah Ismaan baa kamid ah oo halka jooga. Ismaan haye jag säger välkommen. du säger välkommen. taagana magaalada wadanka Sweden magaalada Stockholm Landa Airport. Aamino wali may soo bixin laakiin shacabka soo dhaweynaya oo fiyooriyaasha la taagan oo gacmaha furan raba inay ku soo dhaweeyaan Aamino waxay taagan yihiin meesha laga soo baxo ay taagan yihiin waana sugaynaa insha Allah. aad iyo aad baan rabnaa inaanu idinka qabtiro oo aan idinka dharjino wararka iyo soo dhaweynta iyo xafladaha loo dhigi doono Aamino. waana mahadsantihiin. halkaas waxaa ka soo muuqda Aamino Muuse oo aan dictooradda aan soo dhaweynayno. dictooradii waa taasaa hadda waxa la jooga Asad baa la jooga. aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. waxaa hadda u tegay mulki Ciise u tagtay haddana waxa u tegaya liibaan baa u tegay. halkan waxa kale oo soo dhaweynaya dad badan oo aad u badan baa soo dhaweynaya. ما شاء الله waxaan leenahay maadaama wadanka ka timid soo noqotay maxaad dareemaysaa wadankaaga ku soo noqotay ما شاء الله meeshaan ka imaadaan nuuxiisay ما شاء الله ما شاء الله kulay wixii waraysi iyo wixii wada hadal way dambeyn doonaan laakiin hadda waxaan rabnaa maadaama airportka aad joogto airportka aan kugu soo dhaweynay aadna daalan tahay wixii kale oo dib ayaan iska oran doonaa. aad iyo aad baad u mahadsantihiin.